maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka gaar ahaan siyaasiyiinta culimo u diinka dhalinyarada aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Warshiikh ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe inay ka qayb qaataan dib u dhiska wadada xiriirisa Muqdisho iyo degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo bacaad fadhiya taasi oo wax ka tari doonta isu socodka dadka iyo gaadiidka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Makaraan ayaa ugu baaqay bulshada ku nool degmada Warshiikh inay gacmaha isqabsadaan ayna u soo jeestaan horumarka gobolka gaar ahaan dib u dhiska wadada xiriirisa Muqdisho iyo degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Warshiikh iyo degmooyinka ka dambeeyo waxaana dadkeena ganacsatada oo degmada Warshiikh markaan ka soo qaadno u dhashay oo hantida leh oo wax kasta oo maartay wax lagu qaban karo maanta haysto waxa laga yaabaa inay deegaanka ay degan tahay walaashiis ama hooyadiis inay degan tahay laga yaabaa haday xanuunsatana wadada aragni la marsiihayo ayagana waxay garalaayeen inay deegaanka ay ka soo jeedeen inta u soo noqdaan war waxa meesha yaalo dhagaxa meesha uu yaala dhismaha meesha wax kasta la qabahay meesha yaalin inay dhismihii iyo wadadii inta la iskaashto oo wax la isku darsado oo fikir iyo xoolo iyo maskax la isku darsado inaan wax qabsano ayaa laana waxaan ku qabsan karnaa muddo gaaban iyo sanad iyo 2 sano ayaan maalin kasta dad aan sugaynaa asaageena wax laga soo aruushasaan waxaan leenahay wax nooma qabatiino haddii baasha la yiraahdo quraan baranbarada haddii kor loo jeedo gidda loo rido ma soo istaagi karto meesheeda ku dhimanaysa annagana waxaan u dhaqmaynaa sida baranbarada gidda loo rido kale aan dhaqmayna asaa waxaan leenahay kuwa sidayna oo kale oo kaniisada xataa wax looga soo aruushay aan sugayna anaga gudoomiyaha hore ee degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta odayaasha waxgaradka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan shacabka ku nool degmada Warshiikh inay ka shaqeeyaan horumarka degmada gaar ahaan dhinacyada ammaanka degmada Warshiikh iyo deegaanada hoos yimaada waxaan kaloo idin leeyahay Warshiikh jidkan laba dhibo lagu qabaa dib Soomaalida iyo dadka dalka deegaanka leh oo wax idin kala qabo kama qaba kartii waa bacaadka laakiin dib kala jira meediinta laga bara jiray isbaarar iyo burcada joogto nimayahu ma maqli karo maydi culimadaas digaartay dhaleen intay jira ma gara karo marka raagaceel iyo Warshiikh wala soo xareysan jira waxaana laga yaabaa in faralaalaab lagu maro mudada amba marmar dadka lagu galo warbacaadka dadka Soomaaliyeed amba hawiyaha amba argaalka ayagu kala dhaxay bacaadka inay wax ka qabtaan laakiin idinka tuugada waad xalaxaad ka qaban kartid in igaar 4 kilo qoys iyo 5 kilo qoys 6 kilo qoys qadaa illa dilawa sharcigu qabo si dadkaasu u nastaan ma maqli karno Axmed Makaraan ma joogo may maqla gudoomiyaha degmada Raagaceel may maqla halka xilka loo dhibo shiidka la yiraahdo may maqla warnamayaho waxaas lama qaadan karo gudoomiyaha degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo arrimaha ammaanka degmada Warshiikh sida hore wax loo sheegay xoolo waa ka duwan tahay waa la dadaalay qaab wax bartood way jiraan insha Allah tuulada inaan sifayno waa muhiim ma la ogolaan karo in culimada korkeeda mar walba lagu tiro wax lagu dhaco waxaan ogolaan karnaa maahan waxna ka qaban doonaa duwalida Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho